Canabey wadnahaaga ma isiinaysaa? Sidee yeelaysaa? Markastoo aan ku soo xasuusto waxaan rabaa inaan qalbiga ka dhoola caddeeyo. Guurka kadib sidaan ma ii qiimeynaysaa? Guurku wuxuu qiimo leeyahay marka aad qiimo u yeesho. Ilaa aakhiro diyaar ayaan ku ahay. Waan ku jecelahay. Waxaan jeclahay inaan arko adigoo faraxsan. Abaalmarinta ugu weyn oo la isiiyana waa adiga dhoola caddeyntaada. Qoraalkaaga mid ka mid ah ayaa bedeli kara niyadeyda oo dhan. Hal hadal oo aad idhaahdo ayuu qalbigayga ku jibi karaa. Sidaas oo dhan niyad xaggayga ugu jilicsan tahay laab jecel. Mararka qaar waxaan la yaabaa jacaylka dagaal ma u qalmaa. Laakiin marka aan fiirsho wejigaaga waxaan ba arkaa anoo dagaal diyaar u ah. weliba adiga dartaa. Waan ku jeclahay Canab. Hadalladaada qalbiga ayay farxad gelinayaan. Canabey run ahaantii aad ayaan ugu baahanahay dhoola caddeyntaada. Waxaan ku faanaa marka aad ka fogaato dumarka oo dhan. Macaanay maba aqaan si dumarka loo shukaansado. Maxaa yeelay markii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreysay aan jeclaado waa adiga. kulankeena waan xasuustaa kadiis ayuu ahaa. Kaftan ayuu ku bilowday. aad ayaadna ii kifaaxisay. Ma aqaano sida aan adiga been kuugu sheego. daacad sanida Soomaali ma tihid miya? Soo ma ogid inaad tahay wiilka aan ku riyoonayay. waan ku baryahay iga tegin. xitaa inaan addoon kuu noqdo diyaar ayaan u ahay. hadhihin sidaas waa ku baryaa. calaf iyo nasiib inaan ka camal bato ayaan diyaar u ahay. aad ayaan buu xiiseeyaa inaan ku dhaho halo, balse aad ayaan u necbanahay inaan ku dhaho baay. waxaanba jeclahay habka aad ii jeceshahay. waxa ugu adag ee aan weligay samay karin waa adiga inaan ku iloobo. aad ayaad iigu fiican tahay. maxaan sameeyaa si aan kuugu qalmo? hab isii oo keliya. shab isoo dhahee macaan. waadba kulushahay. kaftanka noocan oo kale kalkacayl ayaan ka qaadaa. waa inoo kulantay dambe macaan. haye laakiin wax ayaan rabaa inaan kuu sheego.